dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mudane mustafe maxamed cumar oo waraysi gaar ah siiyey v o eda laanteedan afka soomaaliga ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga ethoobiya ee haatan kusii faafaya bartamaha dalkaasi madaxweynaha ayaa dhinaca kaleto waraysigaasi kaga hadlay amniga gobolka soomaalida iyo abaaraha jira wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa waraysigaasi kula yeeshay magaalada jigjiga ugu horreyntiina waxa uu wax ka weydiiyey deegaanada ku dhowdhow iyo dagaalka sida uu ku fidayo. waad mahadsantahay gaata sidaad la socoto dagaalkan wuxuu bilowday sanad ka hor xooga TPLF sidaad sheegtay magaalooyinka dhese iyo kombolja oo gobolka axmaarada ka tirsan gobolka wallo ee axmaarada ay qabsadeen laakiin aaga dagaalku uu ka ballaaran yahay intaa ugu yaraan afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca gondar dhinaca xadka suudaan walqaayt iyo aagaas dhinaca anfarta iyo dhinaca wallo afar aag buu ahaa marka meelaha ay hore uga socdeen waa meeshaas wallo eed sheegtay laakiin iyaga laftigooda ogtahay in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda qacanta uu ku jiro qowmiyadda ama gobolka axmaarada marka waxuun hal dhinac uun ah sida loo dhigaya saxaafadda maaha waa tahay dagaalka waqooyiga saameyn noocma ayuu ku yeeshay dowlad deegaanka soomaalida dabcan dalku isku wada xiran yahay wixii masiibo ay meelaha qaarkood kusoo kordha meesha joogtana kalena uu kusoo gaarayaa hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo cidhiiri ka yimaada hadday tahay dad fara badan oo kasoo barakacaya ama soconaya laakiin annaga wax saameyn oo sidaas oo ballaaran hadda aan ku idhaah taasu nagu soo kordhiyey ma jirto hagaag adigoo aad u mahadsan waraysiga gaarkeed ka ogolaatay idaacadda v o inaad siiso dad badan oo aqoon-yahana mudane madaxweyne waxay qabaan in dagaalka uu yahay geopolitic oo ay ku hardamayaan quwado shisheeye oo raba gacan ku-haynta badda cas ama geeska africa aragtida noocaasa ma ku muuqataa waa ii muuqataa in dagaalkan uu yahay dagaal ka ballaaran qowmiyadaha loo nisbaynaya inay salaynayaan dalka gudihiisa marka waa ii muuqataa haa inuu yahay dagaal ka ballaaran cidda ku adkaanaysa laakiin waa cidda ku taagan waddada saxda waa cidda shacabka dhulka jooga meelaha lagu hardamayo jooga deegaankeenana ku daro ay taageersan yihiin mas-uuliyiinta dowladda ee aad adigu ugu horeyso maxaa idinka qorshaysan hadday isbedesho xaaladda dalka qorshayaasha noo yaala qaarkood waan hordhac ahaan waan uga sii hadalnay inaad maqashaa laga yaabaa xagga amnigoo kale waxyaalaha noo qorshaysan xagga abaabulka shacabka waad ogtahay in wadatashi ballaaran shacabka gudaha iyo odayaasha lala yeeshay waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaala marka ay munaasib noqoto marxalada aad ka hadashay haddii ay timaado la arko in lagu dhaqaaqa ay tahay iminka in laga hordhacaan u baahnayn laakiin waxaa noo qorshaysan guud ahaan kow deegaan soomaali ahaan marna inaanan qacanta u gelin masiirka soomaaliyeed cid kale ayna qacanta u gelin ama TPLF ha noqoto ama kuwo dhabarka TPLF intay soo fuulaan inay dib halkaa mansab uga raadiyaan ku hamiyey ha noqotee marna ma dhacayso in arrintaasi dib loo qaato tallaabooyinkoodna waan bilownay waa tahay adigoo mahadsan bal guud ahaan xilligan waa sidee xaaladda deegaanka soomaalida xagga amniga 100% deegaanku waa amni wuxuu amni ku yahay waxaa weeye shacabka oo nabadgelyadaas isagu dhexaad u ah hay-adaha amniga oo habeenii maalinba shaqaynaya iyo iyada oo xukuumaddu ay xoogga saartay inay ka jawaabto baahiyaha shacabka ee kala duwan dhowaan waxaa jirta inaad bartaada facebooka soo dhigtay qoraal ay dad badan siyaabo kala duwan u turjinteen iyadoo qoraalkan uu ka mid ahaa waa la kala adkaan maxaad ula jeeday madaxweyne waxaan ula jeedaa afkaaraha isdiidan ee deegaanka ka jira kuwa TPLF taageersan iyo kuwa TPLF cadow u arka oo kale matalanba sida aan sheegayna waan ku adkaysan waa la kala adkaan cidda u macnaysanaysa si kale anigu waxaan mas-uul ka ahay waxa aan leeyahay iyo qaabkan u fikirayo mas-uul kama ihi qaabku qofka kale u macnaysanayo waan sheegay qoraalkan way ku caddahay waxaa kala adkaanaya afkaarta TPLF taageersan ee 27 sano ee dhibaatada dadku lagu hayay ilowsan wixii dadka ku dhacay iyo dulligii iyo gumaysigii ku dhacay ee weli u hanqaltaagaysa ku dulnoolaanshaha TPLF ay rabto mid la mida iyana inay ka samayso deegaanka soomaalida waa la kala adkaan haddii ay markaan leedahayna annagaa adkaanayna waxa maanan raacin waxaan qabaa haddiina laga adkaadana waxa weeye waa nasiibkano haddii aan adkaanana sida haddaba aan ku hamiyeyna aan ku fikiraynana siyaasadaha hadda aan wadno aan isleenahay cadaalad iyo sinaan bay salka ku hayaan ayaan sii wadaynaa waxaan nafta hadalka kuma jirin ciddii u macnaysata si kalena xor bay u tahay dhanka kale xilligan dalka waxaa lagu soo rogay bayaanka xaalad degdeg ah deegaanka soomaalida si u saameyn doonaa sida qawaaniinta waddan ka soo baxday in baan u wadi doonaa ka badbadin inaan ku darno ma aha waayo deegaankanaga xaaladiisu way ka duwan tahay xaaladda dalka marka dhab ahaan laga hadlo laakiin xaaladda degdega ah waxaa iyana muxuu ahaye xaqiiqa ah inay jiri doonaan dadyow maadaama dalku khalkhal inuu galay aragti ay qaateen
inay isku dayaan deegaanka inay khalkhaliyaan. Marka waxaan u adeegsan doonaa inaan kaga hortagno wixii xumaana iyo wixii amni darra ay deegaanka ka dhacaya ama in la sameeyo laga rabo. way ugu horeysa saan kuu sheegay la wareegidda hantida kuwa shirarka ku qabanaya dibadda kuwa lacagta u ururinaya TPLF. hagaag waadka adigoo mahadsan maadaama haatan colaaddu soo fiday islamarkaana ku soo fiday bartamaha dalka maxaa shacabka deegaanka soomaalida looga baahan yahay in la sameeyo midnimo? runtii midnimadu waa muhiim. midnimadaasi waa inay noqotaa mid mabda iyo mowqif cad oo la garanaya ku salaysan. sida aad og tahay maanta shacabka soomaaliyeed siyaasadda kuma midoobi karaan ama wadad ha dhibsadaan ama inaan dhibsanin waa xaqaa'iq jira. mucaarid iyo muxaafid sababtay ku jirtaa waa sababtaa wey. tartan baa la geliyaa siyaasadeed, urur mucaarada, urur muxaafida. waana qabaa in ururada mucaaradka kuwa badan ka mida markaan waraysanay sheekaysanay ay badankoodu qabaan dee in meel un la wada galmahe inaan aragti kala duwan qaadano xaq baan u leenahay wayna ku saxsan yihiin. taa marka laga tago hadda maanta xaaladda aan ku jirna xaalad urur mucaarid iyo muxaafida maaha, waa xaalad dagaal. xaaladda dagaalkana mucaarid iyo muxaafid wax la yidhaah xagga dambe u fadhiisanaya cadow iyo dad nasteexa unbaa loo kala bixi. ciddii cadow markaa soo raacda cadow markaa anu waxaan u aqaana cadow TPLF hadday tahay ka aniga cadow ii yaqaanana TPLF nasteex buu u yaqaanaa. sidaa daraaddeed ciddii cadow soo raacda cadow bay noqonaysaa. wixii cadow la iskaga dhicin lahaabaa la samaynaya ama siyaasad ha lagula dagaalamo ama miidiya ha lagula dagaalamo ama qori ha lagula dagaalamo. marka waxaan qabaa midnimada inaan qeexno mabaadi'da cid alla ciddii leh tala Soomaaliyeed waa inaan inagu tala Soomaaliyeed yeelanaa. deegaankeena madax banaanidiisa waa inuu haystaa. waa inayna dhicin in cid kale wax inoo yeedhisaa. cidda fikirka noocaasa qabto oo dhan habeen iyo maalin u taaganahay inaan iska rabsano. dhowaan waxaa lasoo dhisay dowlad cusub oo dalka Itoobiya iyo deegaanadaba oo ka mid yahay dowlad deegaanka Soomaalida. dadka qaar waxay qabaan markaasi saamigii Soomaalida hadda ka hor ay ku lahayd dowladda dhexe in sidii hore uuna ahayn islamarkaana dowladda cusub ee haatan lasoo dhisay ay ku leedahay hal wasiir. arrinta noocaasa sidaad u aragtaa? saamiga siyaasaddu wuu isbebedelaa laakiin annaga aragtidannada matalan baa heer federaal oo kale waxaan qabnaa in wax ba-an oo laga sii cabsado wax badan oo lasii saluugo inuu meesha oolin. marka aad eegto inaan ku leenahay ugu yaraan 3 wasiir hadda oo ah wasiirka maaliyadda, wasiirka darajo wasiir oo ah xisbiga madaxa xisbiga oo position aad u awood badana, Dr. Cabdiwaasac oo isaguna darajo wasiir haysta xisbigana ka tirsan, iyo 3 wasiir ku xigeen oo xafiisyada caafimaadka, biyaha iyo ganacsiga ah. marka runtii waxaan leenahay marka eegto miisaanka portfolio-ga aan joogno marka loo eego wax badan oo laga sii sawduga ma laha, laakiin inta in ka badan inaan helo xaq baan u leenahay waana ku dadaalaynaa inaan soo dhacsano wax intaa dheer. dowlad deegaanka madaxweyne qaybo ka mid ah waxaa ka jira abaaro ba'an gaar ahaan gobolka Daawa. ka xukuumad ahaan ilaa hadda tallaabooyinka aad qaadeen abaarahaas maadaama roobabkii deertan ay dib u dhaceen bal nooga warbixi. ilaa iyo hadda biyo dhaamis iyo calafka xoolaha in aagga la geeyo waa laga dadaalay. maantadan hadda aan warayska ku siinaya shir ballaaran oo hay-adaha gargaarka aan ugu yeedhnay baa jira. hadda kahor waxaa jiri jirtay marka abaaruhu deegaankeena ka bilowdaan in xoogga la saaro in loo yabo loo sameeyo hay-adaha gargaarka. laakiin annagu maanta shirka waan ka caddaynay mas-uuliyadda koowaad ee ka jawaabidda baahiyaha iyo abaaraha deegaanka waxay saaran tahay xukuumadda. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar oo u waramayay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.